nabaday daawadayaal ku soo dhawaada warkii telefishinka Bulsho oo idinka imanaya xarunta dhexe ee telefishinku ku leeyahay magaalada Hargeysa. Qodobada warka aad ku maqli doontaan waxa kamid ah wasiirkii hore arrimaha gudaha ahna la taliyaha arrimaha siyaasadda madaxweynaha Somaliland ayaa ka hadlay qaabka uu u baxsaday libaaxii cabsida badan ka dhaliyay Hargeysa. ciidamada booliiska Somaliland waxa uu suura gashay abaara subaxnimadii hore saaka inay toogasho ku dilaan libaaxii baxsadka ahaa. shacabka magaalada Hargeysana waxa ay ka dareen celiyeen baxsashada libaaxii iyo waliba dilitaankoodii. gudoomiyaha degmada Barawana waxa uu sheegay inuu ka badbaaday qarax lala damacsada. dhinaca iyo wararka arrimaha dibaddana waxaanu idinka haynaa waqooyi bari Israa'iil ayaa laga soo sheegayaa dhimashada 44 qof oo iskugu yimi kulan diineed. xukuumadda Kenya waxa ay sheegtay inay dib u dhigtay xiritaanka xeryaha qaxoontiga. qodobadaasi daawadayaal waxa ay ka mid yihiin qodobada aad ku maqli doontaan warka tan iyo intaanu ku guda jirno baahinteena wareed. warkana waxa idin la socodsiinaya anigoo Ahmed-Nuur imikii haatanna ku soo dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan.